bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmada Xariirada ee gobolka Salel oo saaka la hadlayay qaar kamid ah warbaahinta gobolka Salel ayaa waxa ay ka hadleen isla markaana ay aad uga hadleen baahida weyn ee loo qabo in dib loo soo kiciyo shabakadii caalamiga ah ee Xariira News oo muddooyinkii ugu dambeysay shaqada joojisay ama aan shaqaynin waxayna sheegeen inay dadka deegaanku tabayaan kaalinta mugga iyo miisaan kale ee ay shabakadaasi u haysay dadka deegaanka waxayna sheegeen in waqtigan xaadirka wax laga xumaada ay tahay inay shabakadaasi shaqayn weydo iyagoona intaasi ku daray ma garanayno sababta ay u fadhido shabakadaasi ama shaqada ay u deysay waxayna dadkaasi ku baaqeen in shabakadaasi dib hawada loogu soo celiyo iyagoona ku tilmaamay inay shabakadani ahayd isku xidhaha dadka iyo deegaanka isla markaana ay dadweynuhu ku kala war qaadan jireen dal iyo dibadba waxayna baaq dheer u direen shabakadaasi iyo mulkiilaheeda iyo guud ahaanba cid allaala cidii shabakadaasi sababaha loo xidhay xog ka haysaa inay dadka la hadlaan isla markaana ay sheegaan sababta shaqada ay u joojisay iyagoona intaasi ku daray inay shabakadani ahayd mid ay dadweynuhu aad ugu xidhnaayeen isla markaana ay ku cabiri jireen dareenkooga iyo danahooga gaarka waqtigan xaadirkaana ay filayeen inay shabakadani sii horumartay isla markaana ay noqoto warbaahin caalami ah sida TV oo kale balse waqtigan xaadirka ay shaqadii joojisay iyagoona intaasi ku daray in ay ka filayaan isla markaana ay rajo weyn ka qabaan in baaqooga loo tixgeliyo isla markaana shabakadaasi dib shaqada loogu soo celiyo sababtoo ah shabakadani waxay ahayd muddo dheer soo shaqaynaysay isla markaana dadku ay la falgaleen waxaana ay sheegeen in shabakadani ay tahay mid lagama maarmaan ah haddaba waa kuwa qaar kamid ah dadweynaha degmada Xariirad oo dareenkooga ka hadlaya isla markaana arintaasi ka warbixiyay ayaa waxa ay hadaladoodii u dhignaayeen sidan waxyaabo badan bay noo qaban jirtay waxa isku xiri jirtay bulshada qolba joogta iyo qolqol joogta waxaana kamid ahaa waxyaabihii ay qaybta weyn ka geysatay xagga warskaarsiinta isbitaalka Xariirad iyo deerka dugsiga sare iyo maxaan ku dhahday iskuulka boardinga Zayda waxyaabo badan gobolka Salel oo qaban jirtay iyada TV u ahayd TV maxaa ahayd gobolkan waxyaabo badan laga gudbiyo ma jiro waxa ugu muhiimsan shabakada bal waan baafinayna waxay hawada uga maqan tahay iyo mulkiilaha ka codsanayna bal sabab u joojiyay inuu cadeeyo bariyahana ma shaqayso gobolka degmada Xariirad waxa ay kamid ahayd meelihii sida weyn u daalacan jiray shabakada caalamiga Xariira News bal waqtigan xaadirka muddadan hawada ka maqan tahay maxay culays oo bulshada ay dareemaysaa waxay dareemaysaa qofkii dhiban iyo qofkii kale maxaan ku dhahday wixii horumar wadanka laga qabtaba halka isha wararka ay jirtay Xariirad lagala socdo imika waxa meeshii matay ina dhigalaan iyo dhalaan bay soo korodhay aad baad u maasantay Dr. Cabdi Mahsan kadib markii ay muddo shaqada ka fadhiday shabakada caalamiga Xariira News ayaa dhalinyarada aqoon-yahanka waxgaradka iyo siyaasiyiinta deegaanka degmada Xariirad waxa ay siyaabo kala duwan uga hadleen in dib loo soo celiyo shabakadaasi iyaga oo sheegay in duruufaha qalafsan ee deegaanada ku gadaaman iyo xagga waxbarasho iyo dhinaca baahiyadba noqotay wixii danahooga ay ku baahsan jireen balse ay muddooyinkani dambe ay shabakadaasi shaqadaasi joojisay isla markaana ay kala xidmeen jirin meel ay danahooga iyo fikirkooga ay ku cabiraan waxaana dadka reer Xariirad oo amuurtaasi ka hadlaya ay hadaladoodii ku bilaabeen sidan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam waad maadsantahay socodii marka horeysa aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa barnaamijkan aad duubayso ee ku saabsan Xariira News waana mid moogtahay ay dadku inta badan ay dareensanayn si aad u dareentay si aad barnaamijka u duubayso aad iyo aad baad socodka ugu mahadsantahay kaas aan kugu mahadnaqay markaan u gudbo xagga shabakada Xariira News oo shabakada Xariira News waxa ay meesha qulaatay indhaha oo kala furtay gobolka Salel ee warkiisa lagu ogaayay ee halkay xaaladdu marayso kolba subaxa barnaamijka la duubo habeenka laga daawan jiray waanu indhahan isku qabsanay imika gaar ahaan degmada Xariirad anu waxaan gudoomiyaha isboortiga degmada Xariirad waxaanan moogtay markasti hawlaha isboortiga siday u socdaan iyo barnaamijyo kale oo ururada iyo waxa ay duubi jireen iyo xaalad kasta oo Xariirad ka jirtaba Xariirad shabakada Xariira News meesha qulaatay aan dhigano ee dadka uba joogta ama umada kale ee danaha Xariirad xiisanaysa meesha qulaatay ka daawatay ayaa ahayd waxaan moogtay aad iyo aad baan gaas ku qabsanay shabakadaasina aad iyo aad baan u darsanay waana meesheedii waxa lagu banaysay meel weyn bay lagu banaysay xilitaanka xildaas waxaan u baahanahay
muddo ayay shaqada ka maqan tahay shabakadaasi waxaana la sheegay inay shabakadaasi ay duruufo ama cillado dhaqaale awgeed ay u xidhan tahay marka maxaad ugu baaqaysaa dadka deegaanka iyo mulkiilaha shabakadanba inay sidii ay shaqadaasi ay sidee lagu bilaabi karaa shaqada shabakada waa su'aal fiican mid weydiisay horta waxaan ugu baaqayaa mulkiilaha shabakadan masar qadar waxaan leeyahay niyow dadka waad u shaqaynaysay waxaad hayd fircoon ha ka quwad jabin iyana cid ama meel shoor meel kaga soo noqda ama cid waqti wax kugu soo celisaa ood ka niyad jabto iyana jirin waxaan leenahay shabakadan aad iyo aad baan waqti ugu baahanahay inaad soo celiso ayaan kaa codsanaynaa qadar bulshadana waxaan leeyahay qofka wax wanaagsan sameeya ee hormuudka ah ee ummadda meel fiican marinaya waa la taageeraa aan taageerno inuu qadar inoo soo celiyo shabakadii aynu si fiican uga hadalno bulshada iyo dhalinyarada isboortiga iyo inta bulshada ee moogtahay danaha bulshada ee cararad danaysaba waxaan ugu baaqaynaa in ay moogtahay ugu yeedhaan ugu baaqaan mustarqadar inuu hawshaas soo celiyo kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah haldoorka iyo waxgaradka dhalinyarada degmadaasi xariirad salibaan cali waban waxaa ka mid yahay dhalinyarada aqoonyahanka ee deegaankani muddada fasaxa ku sugan jaamacadaha dalka dibadiisa ka dhigta salibaan bal ka waran shabakada iyo baahida weyn ee dadku u qabeen iyo shaqada ay joojisay si aad u arkaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى. الشركة هذه المغفر أنا أحب أبني بروح السنة وحياة بدون القرية دلها علينا هي يوم كذا لها وهذه الشركة جالسة تنافس وهي مدافعة عن كل شركة السنة وحنا يا الشركة خضر ومسلمين ورئيس يعوسي وحياة شركة إياه هذا الله دخل هذا الضبط سنة وشغالين في العالم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنجو dhalinyarada gobolka Salel gaar ahaan degmada Xariirad waxaan aad iyo aad u tabaynaa oo u tabnay warbaahintii caanka ahayd ee gobolka ka soo jeeday Xariirad News aad iyo aad baan u tabnay waxaad warbaahin aan kala socono waxaliya wixii wararaya isha wararka dhan kala socono aan ku gudbisano baahiyaheena gaarka aan ku gudbisano gaar ahaan kaga hadalno xagga caafimaadka xagga waxbarashada xagga degmada dhan wixii ka dhaco aan kala socono ayay ahayd imikana way xidhan tahay muddo dheer bay xidhan tahay mana garan karno waxay ku xidhan tahay waxaan tabaynaa inay naga maqan tahay warbaahin aan aad iyo aad ugu baahnayn inay naga maqan tahay aad iyo aad baanan u doonaynaa in warbaahintii la soo celiyo cid kasta oo ku lug lahayd inay soo celiso ayaan aad iyo aad ugu baahannahay marka xilligan oo kale waa xilli loo baahan yahay warbaahintaasi dadku waxay gaadheen oo gaar ahaan gobolka iyo waddankuba uu gaadhay in TV lagu tallaabsado TV dadka lagu tallaabsado TV laga daawado dadkeena gobolkeenina waxa ka maqan gobolkeena waxa ka maqan website-deedu waa ka maqan isaga daa wax kale oo ka maqan website-ka waxaan doonaynaa Xariirad News in la soo celiyo oo mustaqbalkana uu ku tallaabsado laga dhigo television caalamiya aad iyo aad baan ugu baahanahay aad iyo aadaan nahay dhalinyaradii degmada Xariirad waan u baahanahay waanan doonaynaa waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo ku lug leh inay la soo daayo ayaan ka codsanaynaa si aan baahiyahayagii iyo wixii degmada ugu baahnayd iyo wixii gobolka u baahnaaba aan halkaa uga gudbisano waanan salaamayaa aad iyo aad baanan nigu mahadcelin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu degmada Xariirad sidoo saaxiibkayba hore u soo sheegay waxaanu tabaynaa oo aad u tabaynaa website-kii Xariirad News oo aanu kala socon jirnay wararka degmada iyo kan deegaankaba oo warar faahfaahsan aad iyo aad aan uga akhrisan jirnay ugana daawan jirnay hadda muddooyinkan waxaynu weynay website-ka Xariirad News oo aan akhbaaraadkeeda aad u akhrisan jirnay aadna u daawan jirnay waxa gobolka ka dhacaya iyo waxa waddanka ka dhacaya iyo waxa degmada ka dhacayaba aanu si xoog uga socon jirnay hadda si waxaad moodaa inaanu in xaqii dagaha iyo xaqii indhahaba ay u darsadeen website-ka Xariirad News
oo ay dadku maadaama ay degmadii xariirada ama magaaladii xariiradan ku noolnahay dadka inta badan ay aad u akhrisan jireen aadna ay u daawan jireen waxaanu ka codsanaynaa maamulka website-ka xariirad iyo intii ay qusayso ka tirsan dadka deegaanka noo soo dayn jiray akhbaaraadkaas ama website-kaas waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa in ay si fiican noogu soo celiyaan website-kii oo hawada mar labaad u soo galo aad iyo aad baan uga codsanaynaa waan salaamaynaa dhammaan wixii website-ka ka shaqeyn jiray iyo wixii maamuli jiray dhalinta xariirada wallahi aad iyo aad baan ugu baahanahay shabakada xariir news maadaama maxaa yeelay shabakadu waxay isku xidhi jirtay dadweynaha noo jooga dibadda gaar ahaan inta qurbaha joogta iyo inta joogta waddanka hadday dad xanuunsan yihiin iyo haddii kaleba aad iyo aad baan isku dhex xidhiidhi jirnay si ay u ogaadaan baahida taala xariirad hadday tahay dhibaato iyo hadday tahay si kaleba marka waxaanu leenahay shabakada la soo celiyaanu leenahay raxiin waxaan u baahanahay haddaan nahay dhalinyartii magaalada xariir news inaad noogu soo celiyo shaqadii iyo iskooladii iyo waxqabashadii aan uga baahanahay anigoo ah dhalinyartii xariirad gaar ahaan dhalinyarta aad iyo aad magaalada ugu taanto marka waxaan anagoo leh shabakada xariir news aad iyo aad baan ugu baahanahay waayo si kastoo ay ahaataba dadweynahaasi dareenkooga ku cabirayay isla markaana baadi goobayay halka ay ku dambaysay shabakadii caalamiga ee xariira news ayaa waxa ay dhammaantood ka sinaayeen odhaahdan odhanaysa dunida casriga iyo warbaahinta waa mid aan kala maarmin isla markaana waxa ay baaq dheer u direen mulkiilaha shabakada caalamiga ee xariira news iyo dhammaan dadweynaha ku abtirsada deegaanadani in ay dib hawada u soo galiyaan shabakadaasi caalamiga ee xariira news taasoo dadweynaha gobolada Awdal iyo Salel ay ku kala war qaadan jireen danahoogana ay ku baahan jireen isla markaana waqtigan xaadirka ay baahi weyn u qabaan waa Cabdimajid Ibrahim Muumin warbaahinta gobolka Salel degmada xariirada ee gobolka